Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Walaalahayga qaaliga meel kasta adduunka aad ka joogtiin kusoo dhawaada mar kale iyo video cusub. Insha Allah tacaala waxaan rajeynayaa inaad meel kasta joogto aad ku caafimaad qabtid oo aad fiican tihiin. Intii xanuunsan Ilaahay caafiyo, intii dhimatay Ilaahay u naxariisto. Insha Allah maanta waxaan rabaa inay habeen wahda habeenay ii tahay. Waxaan rabaa inaan idin la qaybsado insha Allah tacaala hawl yar aan jikada ka hayo maanta iyo dhiirigelin yar aan idin kugu talagalay. Insha Allah aswada dhiirigelinayna. ما شاء الله تبارك الله waxa waay walaalahay jikada marka ku jirto maanta dhan oo waxa waay laga yaabay labada weel oo cunto lagu cun raacsiyo laga tago jikadii oo si fiican loo nadiifin waay ilma ku joogo ilmihii cunto siinaysa ilmihii marka cunto siisid waxa laga yaabaa inaad ka daba carartid oo afka gacmihi ka nadiifisid eeyaa waqti u baahan oo maanta wuxuu u baahan yahay ciyaar siisid wax ka ilaalisid marka waxa laga yaabaa jikada inaadan hagaajino kor la isku gageysaa laga yaabaa alaabta ama waxa interest aad raacsiisid laakiin badanaa runtii lagama gaaro marka walaalahay waxa waa habeenkii alaabtii markii saa loogu casheeyo haddee iska nadiifisid oo jikadoo nadiif ka seexatid igu baroobay haddaa hata saa samaysa alxamdulilah beel waaye haddaadan sameynin habeenkii inta ilmihii ka daba cararaysid sariirta la tagto soo kiciweyso alaabta jikada ugu tagtidne hawl iyo mashaakil markaasay kuu bilaabay heesaa waayo jikada marka alaabta ugu tagto subaxdii markaa soo kacdo ee jikada isdhex taalo niyad jabaa kugu dhacaya adi waxa waa quraacdii si fiican lama cunaayo hoosh way kugu sii badanaysaa maalinta kale howl badanaa ku hadda muujeeda sasa jikada isku dhex taala cuntaa sameeyay ilmihii cunto kale siiyay waa soo seexiyay waa u soo noqday haddaa saa uga seexdo biri waxa waa ii dhamaato howl badanna waa ii taalaa niyad jabna waa ugu dhacayaa maxay ahaydee caafimaadna ma ku jiro caafimaadkaygana ma ku jiro waxa waaye niyad jabkaaseyti waxa waa depression laga qaadaa la yirba wasaqda badan guriga marka walaalahay aad dhiirigelino ka kac fadhiga waa dareema hooyaa tahay ilmo yaraa kuu jooga maanta dhanaa ka daba cararaysa haddii jikada alaab ku taalo bood maaragtay nadiifi meeshaan waxaa rabaa hadda oo cuntada lagu sameysto geedkan geed yar iska waxa waaye hataa jikada hadda kahor cuntaan soo gelinaya ka sheekeeyay geedka jikadeedii ugunka lahaan ma aqaan wax magac Soomaali lagu dhaho kan cuntada lagu kariyo wuu iga halaa markaas waxa la keenay mid aan maxay ahayd oo duq ah oo haddana oonan loogu talagalin meesha marka kiyan ku soo shubtay hadda waxa rabaa kii kafeeg inaan burburiyo raali ahaada kii yaraaya igu soo qayliyay marka waxa rabaa kii kafeeg inaan ka bixiyo oo markii subaxdii oo habeenkii aan ku shubaa kafeega meeshiisa marka waxa sameeyaa maxay ahayd isaasa u diyaarsataa subax markaa soo kac jag la siinaya marka waxa waa biyaha meesha ku shubaya kafayga adoo aan ku shubaya qaxwada ama kafaysa u taqaan ama bunka u taqaanid adoo meesha ku shubanaya waa iska meesha raba inaad tirto marka walaalahaysa idin sheeg muhiim waaye jikada nadiifiskeeda muhiim waaye runtii caafimaadkaaga wuu ku jiraa caafimaadka reerkana wuu ku jiraa waayo cunto iyo waxaas marka loogu tago waxa waa jikada dhibaatadeeda iska badan marka saas isaga nadiifi haba ka siixanba anin igu tijaabi aniga waayo hawsha markay badan tahay ilmoolay aad tahay wixii uu badiyo odaga shaqo uu ka jiro waxa laga yaabaa isku keeni weysid laakiin markay ilmaha ka jiiftaan ilmaha isku dayna habeenkii iyo jiifis ama maalinta aadan jiifin habeenkii markay ilmaha jiiftaan si fiican badan ka gaaraysaa runtii marka waxa kamid ah dadtaan oo kala kamid ah saan iska nadiifinaysaa macnaha maba wax dhibna mana ahan aad naftirkaagana waxa waaye waxa ka qaadaysaa faxfaxa ka qaadaysaa hawsha aad kugu fududaanay runtii tijaabi hawsha aad kugu fududaanaysaa markii la socdo insha Allah xoogaa yaraa meeshan ka toosinaya alaabtii yarti aan rabaa inaan iska nadiifiyo aan maxay ahaydee saas hawsha ku soo wada insha Allah ujeedinba alaabtii waan dhaqay way alaabtu way badneed waqtigiina idinku dheerayaan diiday alaabta dhaqitaanka in ay iskor joogna diiday alaabta soo nadiifiyay hadda waxaan rabaa inaan sink iyo meelahan aan tirtiro do Ilaahay yiraaho markii aad la socono insha Allah meelahaas muhiim ah wasaqda aad maantana gacanta ku qabanay biyaha la furaa waa la xiraa marka aad wasaqda runtii meesha u qabataa marka aan la soo socono insha Allah alaabtan runtii markaad nadiifisid waxay aad ku fiican tahay meesha ee firaaqo qurxna kugu noqonaysa jikada in alaabta isla markaa meesha laga qaado alaabta marka la dhaqo isla markaa meesha laga qaado jikada nadiif ay noqonaysaa waxa waaye hawshan ay kala yaraanaysaa alaabta marka la dhaqo oo meesha ay taalo maanta weerar soo qabsanaa wixii isku badanayaan wixii markaas wax badan isku noqonayaan marka darafta jikada inay firaaqo ku noqoto weelash dhan iska xaray
marka alaabta iska nadiifiye hadda waa qalajiye waa iska xareey meesheedan geliye hawsha kale insha Allah aan ku guda jiraa ila socdo geedkan isticmaalayaa kan waa kii u dambeeyay oo mad igu jiro waaye kana isticmaalayaa insha Allah saan ku soo wadeena ana ma jecli muusig inaan saaro ma jecli marka saan ku soo wadeena insha Allah soo socona geed kasta waa soo bixiyaa markii wasaq aadan aanim caadiyana ku jirto laakiin ma soo bixinay hadda waqtigaas ma haystiba kii qashinka lagu soo guraayo waa kan asigana waa nadiifinaynaa marka waxa waaye aniga idinkugu siinayaa idinkugu talinaya gabdho inaad sameysaan ilmaha markay jiiftaan habeenkii aad ugu qurux badan tahay maalinta markay ilmaha kuu soo jeeda waxba ma qaban kartid ilmihiga ka dab ooynayo way isdilayaan cunugii yaraa waxaa ka ilaalinaya inuu qashinka uusan kaa cunin oo wax qaabdar uusan kaa cabin maanta waa ilaalinaysaa ileen bini'aadan aad tahay waxna meel ugu soo tagtaa laga yaabaa way isdilayaan ayaga waqti u baahan la siiyo loola ciyaaro mararka qaar adigii waxa waa hawlo kale ku yaal cunto kariska way jirta iyadana marka ma laga gaaro ina wixii kala taagtay kala gaartid hadaa kala gaar alaabta markaas dhaysid amba guriga hawsha kala amba dhul dhaqo warkiis daayba dhul dhaqo aan habeenkii dhulka dhaqaa maalin cadde dhul isku taabto waayo dhulka ilmihii ma ka celinaysaa mase dhulka aan nadiifinaysaa waayo ilmaha markay kugu soo jeedaan waxaa laga yaabaa dhulka maalinta ay soo jeedaan inay cararaan laga yaabaa cunugii meesha ku dhaco oo meeshii jug ku soo gaarto marka dhul isku taabtaan habeenkii markay jiiftaan dhulka dhaqdaan nadiif wax markuu soo kaca dhulka nadiif yahay marka muhiim waaye in habeenkii aad hawshaada qabsatid gabdho waa dareema waa la daalan yahay maantana waryaa ku heysay laakiin maalinta kale adina soo kacdid ee wax badan ku fududeynaysa hawsha habeenkii qabatay warwata 30 daqiiqo sheegaysa 20 daqiiqo xataa gali way alaabta marka habeenkii aad saan hadda kala nadiifisad waxaana 15 daqiiqo ay u qaadato alaabtan waxaan nadiifinayo alaabti alaab badan ee muqta qadada marka la kariyo labada weel marka raacsiis habeenkii cashada la isku haysta alaabti lagu casheeyo cashada lagu kariyo marka 15 daqiiqo alaabti aad nadiifisid waa soo baxaysaa fadhiga imaanaysaa fadhiga barkimiya meesha saaraysaa xaaqo yar dhac ku siin amba fuufurka doo ku yaalo dhac ku siinaysaa alaabaha kala qaaday caag biyo ku soo shubanay meesha soo marsiinaysaa waxaa laga yaabaa 30 daqiiqo inay kugu qaadato beeri markaa soo kacday ilmihiyo faxfaxa waxaa soo kacaysaa xalay hal saac jiifis energy ka buux maasha Allah tabarakallah marka ilmihi markaa soo kacday adina waxaa laga yaabaa inaad si fiican xal u jiifano oo inaad nuujinaysa ka tahay marka waxa tabartaada ma ina howl sii qabatid subaxda markaa soo kacday ilmaha waqti la qaado hadaa meel geeynaysa markaa kasoo noqotid waxa guriga daarta markaasiti dhar dhaqo iyo howlaha waaweyn iska qaban kartaa amba cunto karis iyo hadaa hooyo wax barashada waxa iska akhrinaysaa marka waxa waaye aniga tipskeyga waxa waaye idin kugu talinaya habeenkii la iska sameeyo hadda geedan u jeedinta idin tusay waa daay waa ku soo shubay intii ku sii dhaqmeysay meesha ay ku sii jirto waxaan sameeyay meelaha kala soo nadiifiyay kadib meeshii u soo noqday marka walaalahay waa jikadii waan dhameeyay waa tan iyadoo dhamaatay idin la qaybsanaya bal hadda jikadii saan ku kala taagan oo nadiif hadaa bari soo kacday bal maxaa sameynaysaa adiga hooyada meeshaas mashiinkaas tagay kafayga xalab buuxsata jab ku siinaysaa ilmihiina waxa u sameynaysaa markaas hooshii ku kula fuudaanaysaa hata ilmihi markay carcaraan wax isku saqeynayaan iyo wax meesha kaaga daadinaya ma yaalo jikada dhan waasac waaye alaabtana waa kala xareysay wixii waa tirtirtay dhulka waa tirtirtay marka maasha Allah tabarakallah walaalahay aad idin kugu talinaya runtii ani aad ay cajibisay aan uga helo waagi hore waxaan ku dhibanaa markii ilmihii aan cashada siiyo oo inta qubey ka carar soo jiid sariirta geey inta jiifina waqti igu qaadanayso waxa laga yaabaa aan waa daalna maantana taagnay amba soo shaqeey amba waxa laga yaabaa inaa ilmihii ugu dab carraayba
marka ma ka gaarayo waxaa laga yaabaa inaan dhaco markaan dhacana waxaa laga yaabaa inaan meesha kasoo kici waayo subaxda alaabta meesha ii taalo marka walaalahey aad kugu talinayo aad u mahadsantahay fiirsigaaga.